arrinta quantum computer liibanow oo maalmahan fadhka socday maxaa abdeyda ka haysa arrintaas arrintaas inta waa saa sheegtayba fad waaye laakiin waxaan aniga soo dhigay waxa hadda heerkay marooyaan one second waa basically hadda ka soo qaad waxa willow la dhaho google-ka waxa sheekada dhan bilaabay hadduu u qalanno adiga ka soo qaad waxaa u dhigaynaa 1 qubit camal internetkana wax badbaadiyaa jiro oo waxyaalaha dowladaha iyo waxaas isku tirtiraan waxaa la dhahaa magaca hadda ii gambiyey raf 408 ama 208 u malaynaa in la dhaho anyway kaaseeta wuxuu u baahan yahay meesha hadda 1 qubit uu yahay 4000 qubits u baahan yahay just internet kaaseeta le inaa muxuu ahaa la jabsado taasna waxaa sii dheer bitcoin xataa sheekadiisa lama gaarin bitcoin wuxuu u baahan yahay 8000 qubits hadda 1 unbay marooyaan so what I'm saying is sheekadaanayta maba dhowba hadda ka soo qaad lacalla hadday dhacdo xataa ma bitcoina u malaynaysaa inay ugu horeynayso waxa oo muxuu ahaa baxar oo galay waa nuclear weaponska iyo all the bangi muxuu ahaa information iyo swift network iyo dollarkii iyo wixii dowladaha dhan bay isku difaacayeen dhanbo muxuu ahaa wada halis wada galayo hadda annaga dhanba waxaa go ahead laakiin google 100 qubit waa moodi inay dhaheen waa haynaa chipkay soo saareen powerkiisu yahay waxaa u malaynaya adam back baa ka akhrinaya isagoo dhahaya bitcoin waxay u baahan tahay 1 million qubit in macnaha lagu jabiyo maba dhow dhahay waa 10 to 20 years camal yes 10 20 years buu dhahay laakiin waxaan ka wadaa macnaha dadkan ka hadlay waa fadwaas isku raacsannahay laakiin waxa ii muuqata cabsi ah oo dadka qaarkood ka cabsanayaan haddii la jabsado ninkii satoshi lacagtiisii milyankiisii in macnaha la dhaqaajiyo waa ugu daran to be honest with you taas haddii la dhaqaajiyo maxaa ugu daranay soobi karaan way suuqa unbay kusoo daadinayaan taas waxay u keenaysa male cilad oo muxuu ahaa networka may cilad kale keeni mayso laakiin in dadkii ilaa hadda 3 ilaa 4 milyan ayaa lagu qiyaasaa bitcointa macnaha luntay oo 2009kii ilaa waayadii hore markay jiibka ahayd ay dadku kombiyuutarradii iska gelin jireen marka haddii la helo ilaa 4-3 milyan oo hadday jabsadaan oo ay suuqa soo geliyaan briceka wax weyn bay u dhimaysaa laakiin waxaan hadda ka hadlayo wax hadda ma ahan waa 20 sano ma dhowa si ii muuqatay 10 sano ka dambeeya haddii la gaaro xataa waa hard work xataa marka waxaana imaan karta technology ay sheeg anti macnaha quantum computer in ayadana lagu apply gareeyo bitcoin oo ay difaacdo marka waa xaalad ka socotay internetka macnaha maalmahan sababtan macnaha usoo bandhigayo waa sidaas haddana ma ahan wallaahi dhowr sano ka hor xataa waa la dhihi jiray mar walba fadhkaas xitaa la keeni jiray marba way soo noqotaa le waxaan u malaynayaa environmentka iyo waxaas xitaa hadda laga daalay iyo muxuu ahaa illicit activity iyo money laundering laga daalay hadda marba wax kale unbaa lala imaanayaa markii mid oo la karbaasho may waa dhib ma lahan waxaas waa heer la soo maray oo qofku hadda level uu joogo dadka cusub soo galay ba hadda macnaha dadka wave maalinba wave baa yimaada waveka cusub oo yimaada ayay macnaha la mid tahay quantum computer baa lagu jabinaya bitcoin waxa kaloo aan baaritaan ku hay rabina in la wadaago wax la dhaho in dadka self custody-ga in dadkii ay hardware walletkii Soomaaliya laga heli karin maalin horena oo ka soo hadlay waxaan kaloo arkay in computerka oo kaleeto software lagu shubanayo aad macnaha si uga maarmaysa haddii aadan aaladii helay aaladda horta ugu fiican haddaadan helaynina in computer software la dhaho tail os la dhaho intaad kusoo shubatid aad macnaha ka samayn kartid secret macnaha seed phrase-kaaga aad saas ka samayn kartid oo aad uga maarmi kartid macnaha hardware wallet inaad soo gadatid marka qofkii u baahan arrintaas insha Allah ila soo xiriira fiidiyowga waan la soo gudbinayaa marka taas update spero ma sheegaysaa may waa qaab haddaad all computer haysatid wuxuu doonaba ha ahaadee waxaa kusoo shubaysaa waxaa u baahan tahay USB-ga caadiga memory bahalka USB-ga caadiga aaladda yarta oo hadda aad sawirradii lagu shubto oo kale keliya u baahan tahay marka waxaa soo shubanaysaa software ba internetka la dhaho tail os waa kusoo shubanaysaa kaas ayaa marka wuxuu samaynayaa computerka wuxuu ku samaynayaa partition
oo wixii haddaa window isticmaalaysid windowga oo dhan buu xirayaa ama mac haddaa isticmaalaysid OS-ka dhan buu xirayaa kadibna waxaa soo degsanaysaa Sparrow wallet ama ka kaloo la dhaho Electrum wallet kaasaa marka waxaa ka samaynaysaa seed phrase marka waa USB-C-ga yarka oo $10 jooga kaliya ayaa kugu filan kugu noqdo hal wallet ahaan u isticmaashid laakiin xoogaa waxay u baahan tahay qof technical qof walba caadiga dadka caadiga oo dhan ma wada samayn kara xoogaa waxay u baahan tahay inaad technical tahay oo taqaanida sida computer booting loogu sameeyo arrimahaas markay sii guda galaan ani waxaa dhihi lahaa hadda wiil oo cilmi la dhaho oo xagga joogo qof unbuu u dirsaday oo u keenay oo muxuu ahaa soo socday wuu iska hubiyeyna waxaaseeto inuu sealed wax walba ahaa oo la farsamaynin iyo waxaaseeto taasna way samayn karaan qof walba Soomaaliya qof ehelkiisa ayaa dibadda u jira oo soo gadan karaa haddii aad soo gadanaysaan aaladaas oo kaleetana waad awoodaan ani waxaan ka dhihi lahaa 3 xabo oo kala duwan soo galta sida call kaarkaas kaleeto iyo mid kala dhaho bitkii oo kaleeto iyo 3 xabo oo kala duwan iyo blockstream jade saddexaas ayaa aan ugu soo gadan lahaa haddii hadda matalan ba xataa blockstream jade oo kaleeto ay seed phrase-ka ka xad oo kaleeto labada kale ma xadi karaan waxay u baahan yihiin laba furo markiiba marka multisigaas ayaa ugu safe garaysan haddaad qof lacag badan haysta tahay weeyaan ka hadlay maxamed waxaa dhici karta dad badan oo cusub oo waxaan sheegayno waxba ka warhaynin soo wadaa wax yar idiin jilciyo waxa waa horta kow markaa exchange-ka waxaa ka gadatid exchange-ka markuu kuu bato waxa uu kuu gaaro heer adiga ka soo qaad maanta $100,000 marona Soomaa $2,000 ama $2,000 ama $3,000 camal markuu kuu maro bitcoin-kaaga waxaa u baahan tahay inaad exchange-ka kala soo wareegtid because haddii aad suuqan joogto ama haddaad joogin 2022 exchange oo aad caan u ahaa jirto oo FTX la dhaho FTX-kaasi dadkii coinskooda uga dhaafay oo meesha uga tagay ku hilmaamay waxa adiga leedahay meesha male waa username-kaaga iyo password-kaaga bas waxa kaleeta adiga ma lihid soo hadduu ka kac noqdo ama bitcoin-kaaga lagu cayaaro meeshaasaa waxa ku weynaysaa waxaa dhici karta haddii ay kuu qorantahay oo ilaah xataa waxa kuu soo celiyo $100 walbaba ama $1 walbaba 1 cent ay kuu soo noqoto haddiiba kuu soo noqoto waay so waxa waa there's two ways waxaas uga badbaadi kartid one hard wallet la dhahaa taas laakiin hal iskale leedahay laakiin at least exchange-ka uga badbaadaysaa intaa ku meel sugaysid dan hard wallet-ka heer kaleetaa jiro oo kasii fiican waxaas hadda waxa anaga ka hadlayna waxa waaye cold wallet wax la dhaho so adiga hard wallet-ka wuxuu kaa badbaadinaa exchange-kaaneta ilaan waxa adiga not your keys not your bitcoin la dhahaa meeshaan so adiga haddii 12kaas xarfo ya oo adiga haysanin dee adiga ma lihid waxaas adigana ma u talisid so haddii hard wallet-ka haysid 12kaas xarfo waa haysanaysaa laakiin meeshaas inta dhibka kale leedahay waxa waaye qadku weli ku xiran yahay waxa so waxaa u baahan tahay meeshii oo hadda aan ka hadlaynay oo cold wallet la dhaho waxa waaye wax flash drive camal ah oo adiga 12ka xarfo aad ku helaysid oo internetkina xataa aana ku xirnayn waxa waaye levels uu leeyahay laakiin waxaaneeto midaa jiro oo adiga oo multi-sig la dhaho oo adiga 3 qayb oo min 12 xarfo haysanaysid oo laba uga baahan tahay 3daasi haddii aad rabto waxaaga inaad dhaqaajisid so adiga security-gaaga waa inaad serious u qaadataa markii uu lacagta sii kordho ama sii badnaado intaasun baa dhahoonaa laakiin guri ha ka dhiganin exchange-ka insha allah FTX kaliya ma ahayn waxaa kaloo jirtay Malcox mid la dhaho 2013kii kacay waxaan xasuustaa oo kaleeto yar saaxiibkaya oo Soomaaliya mid lagu dhacay oo Cryptopia la dhihi jiray oo exchange lacag ugu jirtay oo New Zealand laga lahaa marka way badan yihiin iyo kuwo kale oo hadda aan maskaxdayda ka maqan laakiin exchange badan ayaa kacay oo lacagta ku luntay marka waa muhiim haddii lacag badan kugu jirto oo dhowr kun wixii ka badan inaad meel aad macnaha adigu maamushid aad ku shubatid oo taasaa muhiima laakiin haddaad ku shubanaysid meesha waaladka adiga khaas ku ahna waa adoo lacag kaash haysta lacag kaashka hadday dariiqa kaaga lunto cidaa weydiin kartid ma lahan marka waa inaad ka taxadirtid lacagtaada kaashka oo meel fiican ku xifdisatid tana waa sidoo kaleeto haddaad waaladkan waxaan aniga liibaan ka hadlayna ku haystid waa inaad aad iyo aad uga taxadirtid si kaaga lumin oo meel fiican ku qoratid